waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bisha 6 sanadka 2020 xadhigga laga jaray madrasada Daarul Quraan ee barashada Quraanka Kariimka. munaasabadda xadhigga jarka dhismahan madrasada Daarul Quraan waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Raaso oo wareeyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Raaso, culimada iyo odayaasha dhaqanka ee degmadani Raaso. waxaana si wada jira xadhigga uga jiray gudoomiye ku-xigeenka degmadani Raaso Nuur Macalin Xuseen iyo gudoomiyaha golaha arrimaha islaamka degmadani Raaso Sheekh Axmed Saafi Sheekh Maxamed. haddaba waxaa munaasabadda xadhigga jarkani ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmadani Raaso. waxaan maanta xadhigga ka jaraynaa dhismaha faraha badan ee 20 qol ka kooban oo loogu talagalay in lagu barto xifdiga Quraanka Kariimka madrasadana magaceedu yahay Daarul Quraan. rumaantii waa dhismo ballaaran, dhismaha isaga ahna waxaa loogu talagalay in lagu barto ama lagu xifdiyo Quraanka Kariimka. xaqiiqatan waxay ka tahay dadaalka loogu jiro in kor loo qaado diinta guud ahaanba, iyadoo ay jiraan branchiyo kale oo fara badan oo ay leedahay Daarul Quraan iyo waliba Daarul Xadiis baa jirto oo iyaduna mataqaana ay college weyn ah. diinta college-yada ama dhismaha noocan ah ee diinta ugu barto tan waa qaybta Quraanka saan hadda ay sheegaan culimadu qaybta Quraanka weeyaan. runaantiina way fara badan tahay qaybaha kala gedsan ee diinta ee lagu barto. waxay tusaale u tahay ama qayb ay ka tahay in dadaal badan iyo juhdi badan iyo waqti badan la geliyay diinta. sidoo kale gudoomiyaha golaha arrimaha islaamka ee degmadani Raaso Sheekh Axmed Saafi Sheekh Maxamed ayaa isaguna ka waramay muhiimadda ay leedahay madrasadani Daarul Quraan. kuna hadlaya afka xafiiska arrimaha islaamka degmada Raaso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaaladan macnaha diiniga ah, waana arrin lagu wada farxo qofkii islaamahoo dhan. dhankiisa Sheekh Cabdikariim Sheekh Maxamuud oo ah injineer ka dhisay madrasadan Daarul Quraan ahna culimada mudarrisiinta ah kuna dhisa goobaha diinta si tabarucaad ah ayaa waxa uu ka waramay irgelinta dhismahani. Allah subhanahu wa ta'ala dhismahan aad ka qiimo badan ee ballaaran ee aad ka wanaag badan allaha noo haysiiyey muddo yar oo kooban noo haysiiyey. allahaasaan ku mahadinaynaa. alxamdulillaah waa nicmo aad u weyn oo ilaahay nagu tafadalo subxaanahu wa tacaala bifadlihi iyo wamanihi. waan ugu xamdinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba alxamdulilah baan leenahay. mar labaad waxaan mahad ballaaran u soo jeedinaynaa culimada dhismahani oo maskaxdooda ka soo maaxday oo ku talagalay inay ummadooda u adeegaan oo baahidooda ay tiraan go'aansaday ayaan mahad ballaan u celinaynaa. waxaan leenahay khayr weyn Allah idinku jazeeyo. culimadu khayr Allah ku jazeeyo waxay sameeyeen iyagoo isku tashanaya inay kaabaan ama ay dhammaystiraan baahida shacabkooda, hadday tahay masaajid, hadday madaarista ay tahay, hadday macaahid tahay. waxaa kaloo ku dareen iskoolkiina waa ku dareen. marka baahidii shacabka ee xagga diiniga ahayd inay dhammaystiraan ayay ku talagaleen. ugu dambeyntii maamulaha madrasada Daarul Quraan Farax Sheekh Axmed ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay madrasadani Daarul Quraan. taariikhda la aasaasay waxay ahayd 1 bishii 12 hijriga oo ku beegan 17 bishii 10 2012 miilaadiga. galaasyada xilliga lagu aasaasay waxay ahaayeen 4 galaas oo sarab ah. kadib dadaal dheer ay bixiyeen culimadii iyo mucallimiintii ka howlgalaysay wuxuu ilaahay suurto geliyay inay soo gaaraan xilli xaadirkan galaasyadeedu 20 galaas oo dhagaxan ah ama si jaajuurkan nidaamkan hadda la dhisay ee laga jaray xadhigga iyo 8 galaas oo kale. dhismahan oo ka kooban 20 qol ayaa waxaa wax ku baran doona arday ka badan 1000 arday, waxaana dhismahani lagu hirgeliyay isku tashi bulshada degmadani Raaso, waxaana gacan weyn ka geystay culimada diinka degmadani Raaso. Cumar Maxamed Cali Cumar Dhago, telefishinka Saab, Raaso.